ardaygaasi galaaskii baan ka saaray markaas uu yiraahdo midgaana galaaskii ka saaray qoftiba waanu yeeray maxaa tiri baan ka yiri waa midgaan qoladii aan ka yiraahdo imaad caayid wax badan tartay reeboona way nagu fadhiyaan haddana waxay doonayaan in liisaabi baa naga maqan والله ريبونا waxa uu suurta galayaan waxbana uma heli galayaan ilaa xaq lagu leeyahay heede ay iska bixiyaan deedegiisu reeboona wad aad u ammaan jecel way aad u ammaan jecel yihiin waxaad soo kalena wada nacib dhaliisha laakiin man dhaliisha sheegaya maxaa loo waayay siyaasiyiin kale oo madax banaan oo adigu aad kamid tahay aqooyahankiya inaad bareedaan oo sida barxad batuunad siyaasadda xisbiyada aad qayb ka noqotaan oo aad idinkuna afkaartiina iyo aragtiyaha deegaankiina adeeg geysaan abigo hatta adag kamid ah reeboona batay ku soo adigoo wariyaa adigoo weydiinay barnaamijkan ama barnaamijka qayb galayso wal ma tiri waa nin beeshaasi maxaa looga siin waayay lagu soo qayb galayso أبو شاشة موجودة. كسرة. ما دويدين تعينون. عرفت ما؟ كلنتو عن أول أكسن دعوة الواحد كسر دواتان ورئيسك التضباط كان أود الميديا أو ما تمرتي إنه جوي هاي أقوياهن أبيب أحمد حسن أو كمينه معلمين تا كهول جلاء مجالات بورما مدة دير أبيب بل وجهرين كسر دو برنامج كأود الميديا يتضباط كا Somaliland waan waxa ka dhacay doorashooyinkiisa saarnaa ee ururada iyo xisbiyada bal ka waran doorashooyinkii ugu dambeeyay Somaliland sidoo aragtay doorashooyinka dhacay. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ciid waan dhawahay markood si aadan wax ku saameeya. Awdal midiina aad baan u soo dhaweynaya. Kullay dalka wax ka dhacay isbedel iyo doorasho aad u qurxoon baa ka dhacay. Horta wax ka muuqatay doorashadii Somaliland ka dhacday in dadku dad ilbahay yihiin. Dadku inay ay u tartamayeen intay tahay markay kambiga sameeyeen iyo markay hadlayeenba inay ka muuqato ilbaxnimo inay ka muuqato inay nabad ku tartamaan inay ka muuqato dadku inay aragtida kala duwan yihiin heede qof kasta lagu ixtiraamo talabaad ee kale su'aasha kale jirtaan waxa kamid ah dalka isbedel baa ka dhacay horda mid weeyaano dadka Somaliland ku nool guud ahaan wadana hableynaya waxaan ugu hambalyeeynaa waxay muujiyeen ama ay tuseen in hogaamiye kasta oo ay doortaan oo waxay ku doorteen ka soo bixi waaya oo fulin waaya heede inay xaq u leeyihiin iska bedeli karaan iyagoon u kala harin ay waxay muujiyeen in ay mas'uul kaarkeeray haystaan ee lafteed muddo simbal inuu yahay mid ka awood badan qoriga waan gartay isbedelka Somaliland ka dhacay iyo xisbiga mucaaradka ee xisbiga muxaafidka ee wadaniga ku guuleystay adiga see kula muuqataa ma sha Allah hadda kullee waxay la muuqataa hadda guushu ay xisbiga ismiin guul waxaan taariikhiya waa guul aad iyo aad aan la yaab xaqiiqda marka laga hadlo waayo xitaa nabarka lagu kala badiyay ayaa nabar aad u kala badanaa taas waxay muujinaysaa misalno kale xisbigan dadku inay rabaan waayo suuqa wuxuu keenay ballanqaado suuqa wuxuu keenay in waxyaabo badan oo ajantiisa kamid ah uu fulinayo ajandaha uu soo bandhigay uu dadku soo bandhigay dadku ku doorteen waxaan ka rajaynayaa guusha ay dadku isku raaceen ee midka ah hada waa mid oo dadku wax isku raaceen in misalno kale dalka u baahan yahay isbedel haday tahay dhinaca dhaqaalaha haday tahay isku haynta shacabka haday tahay misalno kale baabaca dhaqaale ee dhacay waxay aaminsan shacabku iyaguna u ballan qaadeen in waxa soo dhibaatooyinka haysta in dadka saarayaan ilaahay wuxuu weydiinay ilaahay ku astro waa gartay adigu isbedelka Somaliland ka dhacay ee lagu doonayay in xisbiga mucaaradka ee waqtigaas ee wadaniga inuu ku guuleysto doorashada qayb ma ka ahaydo ma doonaysa inuu isbedel Somaliland ka dhaco boqolkiiba hay maxad ku doontay boqolkiiba waxaan ku doortay waxaan ku qancay heede ajandaha iyo qorshaha xisbiga ku qancay xisbigaasi oo soo bandhigay ajanda uu ka duwan yahay xisbiga kale oo dadku ay arkayeen in future-ka iyo mustaqbalka dalka iyo badbaadada shaqada iyo isku haynta shacabka ayagu maanta mudiin loo doorto waan gartay sax maxaad ku doortay adigu kulka ya maxaad ku doorbiday niman waxaan ku doortay dalku niyo muddada ay xisbiga kulmiye hayay
labada wixii ka kulmiye soo maray kulmiyii hore siinay hoggaanka khayr Allah si Allah ha u naxariistee wuxuu ahaa kulmiye wax qabtay ya oo aan la dafiri karin waxyaabo uu qabtay heelka uu gaaray xitaa dhaqaalaha heerka isjeclaysigii wadan jacaylku heerku ka gaaray aad cajiib waxa laakiin kulmiyihii dambe inta ay kulmiye saameysay baabiyeen ay masixeen dalkii markaa wuxuu ku sugnaatay in dadka kala tagaan in dadka kala fogaadaan kadibna waxaan yaabaa u doortay waxa kamid ah xisbigan wuxuu watay mabda ah in dadka la walaaleeyo aftama in dadka laga saaro qabyaaladdan iyo jeclaysiga in dadka laga saaro misalno kala dhaqaal xumaha haysta iyo siyaasad xumaha ayadu ay ajudo ka bay ka saaraan marka qodobada aan ku arkay awgeed ayaa u kaliftay inaan misalka xisbigaasi ku doortay kuna raacay waa gartay Somaliland xukuumad cusub baa la dhisayaa deegaan baad ka soo jeedaa cod bixiyayaal baad tihiin ka waran maxaad ka filaysaa deegaankaaga iyo xukuumadda cusub ee la dhisayaa maxaad baa santahay su'aashaas waa su'aal muhiim ya horta waxyaa beelahan ka soo jeeda iska sheego aan wax ka soo jeedaa beelaha loo yaqaan gabowiye Soomaa Somaliland inta ay jirto oo dhani heede Somaliland xaqooyi kamihii waa gartay laakiin madaxweynaha hadda la doortay isagoo la doono wuxuu noo ballan qaaday inuu wasiir la siinayo inuu wasaariyo wax naga siinayo aftima imikana waxaan ka filayaa ballantii uu qaaday 100% filayo ka filaya insha Allah waa gartay deegaankaagu ma hal wasiir inay Somaliland ka mid noqdaan golaha wasiiradu ba door bidayseen mise in dhaqaalaha iyo ilaha dhaqaaluhu yaallo maamulkaaga aad qayb ka noqotaan ama nidaamka dawladnimada aad qayb ka noqotaan oo aad xildhibaanada qayb ka noqotaan haddii deegaan iyo heer qaran ay tahay ma intaa rajadiinu ma intaa u baahdeen ballanqaadka uu cirro ka soo baxay wasiirka ciltrood ma santahay horta Somaliland diir bin u jibisay diir adag bin u jibisay oo in way la socdayba oo waxay diyaar bin ugu xidhayba aftama gidaarka ay nagu xidhay waxay noo diiday inaan xildhibaan helno laakiin xisbiga aynu ka helay xildhibaannimada ee Somaliland awoodayna tusay wax xisbiga kulmiye oo xisbiga wadani xildhibaan ku leenahay matalada golaha baarlamaanka diirka labaad doonayna inaan jibno wax kamid ah Somaliland tay jirtayba waxaan xaq leenahay ma kala hayn hodan barkood inta kale way imanayeen hodaanu helno wasiirnimada waa gartay siyaasadda deegaankaaga ee aad sheegtay beelaha gabooye muddo badan waxaa ka dhex muuqday xildhibaan barkad jaamac batuun maxaa loo waayay siyaasiyiin kale oo madax bannaan oo adigu aad ka mid tahay aqoonyahankiiya inaad bareedhaan oo sidaa barkad batuun aad siyaasadda xisbiyada aad qayb ka noqotaan oo aad idinkuna afkaartiina iyo aragtiyaha deegaankiina adeeg geysaan abigo cod maasantahay aad baad maasantahay wada su'aashaas su'aasha kaliya ugu dhib badan ba waa su'aasha kaliya qof kastaan waa sheekaysanaa ama soo lisnaa oo weydiiyo wada shakhsiga loo yaqaan xildhibaan barkad jaamac batuun heede wada waa halgamaan ninka sintiisa la sheego ya qofka inta badan waxa la sheegaa marka uu dhintay limintiisa la sheegaa barkad jaamac batuun waa shakhsiga kaliya ee loo dilay afatma waa shakhsiga kaliya ee loo xiray waxa loo dilayay ee loo xiray xitaa loo ceebinayay waxay hayd misalno kale in siyaasadda laga ilaaliyo wada jaamac barkad tuulaha inta lagu sameeyay xaqna wuxuu u leeyahay in lagu daydoota ku darso waa nin mid kale dadkiisa wuxuu qabta inta laga dhasoma waa nin aragti fogle aad ka dareemayso in shacabkiisa la degan yahay oo waxyaabo badan shacabkiisa u qabtay aftama barkhadul ma barkhadu waa hogaamiyaheen runta laga hadlay waayo dunida dhan ee arkaysa adduunyada soo martay dalka dhan ee Mareykanka soo martay nin loo jil Martin Luther King ayaa wax ka bedelay waa gartay ee yiri deewniyo runba wanaagsan nin baa ku nibad riiq u sheexa maanta jaamac barkhatuun waa hogaamiye wanaagsan waa gartay aftama isaga qaar kale kamidana I believe inay soo baxayaan imanayaan laakiin isagoo gobolka Maroodi Jeex ayuu muujiyay xubnihii kale ee gobolada sida Awdal oo kale Gabiley oo kale Togdheer oo kale Saaxil oo kale maxaa la idinka dhex waayay abiga inaad qayb ka noqotaan wada wili khayr Allah ku siiyo horta anigu kaabi bahan reebooro maanay ree Awdal maanay Soomaali ya anigu research ba sameeyay
halkaa baan ka baxay waxaan maray magaalada gobolka Maroodijeex baan maray saaxiib baan maray ilaa waxaan taagay Ceeri Gaabo ma gobolada kale Soomaaliland sida gobolka Awdal dadka degani wadada ka yaabay xawada ku sheegaya waa dadku garaabaya marka arinta ugu sheekayso ee tahad gobolada kale waa inuu saamiga waa dad waxba laga helaa ee gobolka Awdal waa uu saamigiin haday tahay siyaasi haday tahay ganacsade haday tahay wariyaal iyo haday tahay bahdii aqoon-yahanada way kula qaadanayaan iltare way kula qaadanayaan wayna kula qiiroonayaan laakiin dhab kama aha maxaa keenay degdegayso reeboorana hadu wada aad u ammaan jecel way aad u ammaan jecel yihiin waxaad noo soo kalena wada nacab dhaliisha laakiin man dhaliisha sheegaya wafad Soomaa haddaad u tagto ninkii gobolka Awdal ama dabri Awdal ahay ninka wasiirka ama agaasimaha ama cid ay la mitashay gobolkayga ama Soomaaliya iyagoo ku noqday madaxweyne ka noqday madaxweyne ku xigeenada marka u tagto meeshii siyaasadda lagu geynayay uu ku qoslaya waxba kuma qabanayo walaal aftama saawgeed waxaan jecelnahay maanta laga bilayn laga aaminsan ilaa aan xaqayni ka helno awaltan xishoonaynay aan ixtiraamayni kama yeelayno kama aamusayno walaal doorashooyin baa dhaca wax lagu kasbadaa bulshooyinka codka bixinaya ee magaalada Boorame xisbiyadu ay ugu dambeeyeen doorashadii ugu dambeysay ururada iyo xisbiyadu madaxtooyadu ay ku loolamayeen baad kamid ahaydeen maxaa idin diiday inaad heshiis ka gobolka iyo kii saami ahaan gobolka iyo ka Soomaaliland aad ku leedihiin musharaxiinta tirtameena weydiisataan wadciinta waxay badan baa ka maqan gobol dadkaygu ama beesha ka soo jeeda hud dawlad ku nool ma waan gartay waa dad iyagu xoogsada waan gartay yaftma laakiin maanta aan kula hadlayo siyaasadda ugu dhex muuqata xisbiyo badan tamartoodii awooddoodii bay geliyeen yaftma waxaan rajaynayaa haade inay soo bixi doonaan ama ay jiraanba siyaasiyiin bright waan gartay oo cad yaftma oo waxaan aaminsanahay inay ka qayb doonaan heshiisyada la galeen xisbiyada qaar waan gartay kolka maxaad ka filaysaan heshiisyada aad la gasheen maxay inay fulaan oo ballantii noo ay qaadeen ay ka soo baxaan haddii ka soo bixin waayaan laakiin dib ugu maamusayno waxaanu sheegaynaa ballantii iyo axdigii inay ka baxeen waxaad sheegtay in siyaasiyiinta gobolka Awdal markaad u tagtaan ay wax iskaba mas'uuliyadda bay iska keen xil saaran waxyaabaha ku kalifayaan maxay yihiin markaad tiraahdaan annagu deegaankaasaan nahay dadkaasaan nahay gobolkan idin la deganahay ama Boorame idin la deganahay xaqayagii may wada iltrow sheekeynaya sheegadu very interesting waxa jiray inaan aanu iskuulad hayn kubadan wala ciyaar jirnay inankaasi waa nin dheer oo xooggan oo hadal cad oo haddii aad safraaftaan hadal kugu dilaya marka sidaan aan xaq soo qaato wax weeyaan anoo garoon joognaa ay ku yar dhuuban islaayeen kiyala inuu qaado dhug ku jiiday kiyo ku du fadhiya feed ula dhacaya ka qayliyay oo yaan wasaga iga qabtaay waari qadinu ooyaya ma faantay reeboona way nagu fadhiyaan haddana waxay doonayaan in lisaabi baa naga maqan والله ريبون وحنا صورة قليان وحنا وهيد قليان إلا حق اللي يقول لي هي هذا أسكب حيان هذا واقفتي وقفت ما حق سامي سومالنا رادي سومال لم سامي كراديان ويجي سامي اللي يقول لي يجي وإحنا جم قيين يجي بنو مؤقل حدين الدقيستان ولا الدقيسين حتى حق هنا نصيان كلنا له قبل كنا ويهلا يعطيك الله والله إني هي وايو ظلمي محمد الصوالح مباركين واقفتي adiga kaabi bahan ma isku dayday inaad bulshooyinka dhex gasho maamulka gobolka ka jira ama laamaha wasaaradaha ama wasaaradaha dhexe aad xaqaagii iyo mas'uuliyadaadii iyo aqoontaadii iyo kartidaadii aad meelaha ku gaadhood u bandhigto very nice khair Allah ku siiyo ciidda wax leeyahay hay waxa ugu dambeysay ciidda ugu dambeysay aan ku doonaynay isku duwa wasaaradda waxbarashada ya wixii dhan wala noo qaaday hay wasiirkii hawsha laga soo dheeyay khair Allah siiyo team hawsha laga galay ay la galay waliba aniga qaftama hawshii wax isbedelayba waxaan u markii dambe aan ogaaday
hadday tahay wasiir hadday tahay agaasimo guud hadday tahay wasiir ku-xigeen iyo hadday tahay xubnaha dawladda ee kaga jira gobolka awdal heedhe inay ku cadaadis saareen oy ku sababeen inaan anagu booska leenasi maxay sababtu ma garan karo wadada anu ogala xaqayni maxay idinku ogolaan waayeen xaq baad ugu leedihiin cod baad bixisaan cashuur baad bixisaan dhulkaad la degantiisa iyo saxbatay Soomaa su'aashaasi aniga in la weydiiso ma iyaga wayna weydiis aan waan doontay waan raadsaday laakiin xuquuqdeydna ku fadhiyaa waa siyaasi laakiin abi baashu bayska ka bilaabantaa siyaasaddu heer gobol xisbiye mucaarad baa jira inaad u tacabtaan oo gobolka aad qayb ka noqotaan xisbiyada mucaaradka ama garabyada xisbiyada mucaaradka isbedelada doonaya saa kolka xaqiina miyayna ku jirto saxbato hada doorasho iyo meel aan ka maqnay ma jirto xisbi aan ka maqnay ma jirto wafatuma illa ki asad ya asaasiga waan ku jirnay waan gartay wafatuma laakiin waxa ila muuqataa xisbiyada iyo malaha misul kale gobolka in xaqiiqada inta ka qarsanayaan waa gartay xaqna la maqli karo wafatuma ya haduu qof ogaado in wax uu suurta gali waayaan ha dib isugu isku noqdo damiir tola waa gartay ya haddii arintaasi misalno kale hoos u eegi waayeen wallahi muslimiin kama aamusinaan hadii wallahi ray awdal wadada aqoon yahana wadad wax fahmaan haddii ay wixii ka gaabiyeen wal hadii dib gaabin walaal imikada aan ka fadhino waan uga fadhina xaq waxaan gobolka lahayn waa gartay wasaaradaha kamid ah meesha heer waa malaha dhow ilaa tan wasaarado gobolka ka qabsha waa waxaan kalaana hel wasaarada in wax noqono walaal hagrasha jirta deniyo hagrasha jirtay hagrashadaas ma jirtaa maxay tahay hagrashadaas sida waxa kamid ah inay siyaasiyiinta reer awdal haddana shacabku ma yeelanayo siyaasiyiinta reer awdal ee aan xuquuqdeena u dhiibnay dawladdu wax xuquuq sama aan xuquuqdeedu aan yahay xuquuqdeedu imaam aan xuquuqdeedu wallahi ayaa wuxuu doonayaa inuu aniga caburiyo waa gartay ya laakiin awal hadaan aan islahayn dib dadku xaq gartaan riboona waxa nagu noqdeen reer awdal dadaan waxba garanay ay garashadu ku yartahay anaga hadii kadib xoolahayni si waxayna u gartaan hadlayna sheegan gobolka wax jira dhaqaaqyo bulsho ama bandhigyo waaweyn baa la soo bandhigaa haddii danaha gobolka laga hadlayo haddii dhaqaalaha gobolka laga hadlayo kulamada bulshooyinka lagu horumarinayo abeeyo fagaaraha kama muuqataan waxaad timaadaan xilliyada doorashooyinka la yiraahdo xilliyada maxaa la idin waayay dadka wax wada qaybsooyay wax wada intuu waxaad ku daay maxaa la idin waayay heede xafiiska siyaasadda heede hadaan kamid ahay bandhigyada la bandhigayo sidku ogaanaysaa oo lagaaga marti qaaday waan gartay ya ma fatima macnaha barnaamij la qabanayo ama fagaar la isku imanayo hadaan wala lagu marti qaadin oo aan qodobka hadalkaaga laga siin ما تكيمني ما تحضر لك دارين يا عرفت يوحي استعماليا سياسة اللي يلهدو عبرين فشل عرفت ما وأنا دتكي ويرين ميلها الوصول بدي عرفتوينك لو فلانقينا يو أدي أنا بفيل لو ويرين هذا إذا برشة أهان إذا دتكي كلام أنت شو برنامج كقريب كشيء كويدي أنت شو برنامج كقريب كشيء دوري أطاي أنت شو برنامج كقريب بتي وري ما تري محا مو ويدي سيبر محا بيش عشان لو بس قريب نومي مو ويدي سي حتى هذا كم يدا هي بور بتاي كوسا أديو وريا أديو ويديني برنامج كان أما برنامج كقريب كله يسول ما تري واني بيش عسي محا لو بس سيماي لو بس قريب نومي ويدي سي بس عشان ويدي سي كوسا ما ويدين جاينو عرفت ما حدية برنامج ده لأنه مرتقاد أو لأنه يرو هذا وأنا قصة قبل كلام هدف كيني وشديد وكلي بينا ولا كبول شاهان أقوي هند ليدهين تضوح برتيبات ليدهين تضجن عصيدة يبول شوي كقيب كأباتهين أنا ذي سبب وشان وضو حين هذا وسار ده يو نحفيش هذا قبل كي يكون هير قرني مدحوين هذا أقبلك يبل بالا لقى على الضونة تاني ما حد كنت يدينا ولا حسيدنا والله وانو لقى هاي ولا لقى ولا له شيء هاي بلن قاضي سمينيو جبت استبنفلني هذا عرفت ما وانكرت كل مية بلن لقلني سمع ودني إيمي كانوا بلن لقلني وحوي نو بلن قاضين إن شاء الله وحرجينيها الحسب كلمة ثلاثة قبضتي بلنتي يحد يقول قاضي إذا هي دي إنك يسوقي وفي يدي وانكرت هذيك أبي بهان أقوياء هم بعض هاي والشدة أنت صنّات كو دحنوليد وبورمات كو دارتو كو بربارتي كلك ما عقبال هذيك كلا كلنتي والشدة بورما مدة عاد معلن نواده هيدا عيلترو دوار تاي
وأنا تايو أنا مدافر السنة كل بور ما كنا ولا كمتين ولي جاي وحنا مرينا يعني أنا بقول ما كتير دون صاحب وحيابها واحد قصة إليا بدنا بقول مين تنشوفه كل مين المرة ما نلاقي كل واحد كم ذا وحنا مرينا قصة واحد عادي كل يسقال بقول دور سكاشكي لو سكاشكي صدق سكاشين هيدون مرينا يعني لو إنه رأي أوضلع هذا والله بني ورأي أوضلع يبرتمان مقالة بقول مين اسكت وقتي قصتي نقول صورة كلا ويسكت وقتين ninkii wax dilay baa wuxuu dhinac maray oo ag maray guri albeelaha ka soo jeeda ay leeyihiin bulshadiiba waxa tiri adiriis bulshadiiba waxay tiri nin gabooyaa ninka dilay ninkii la dilay dadkiisii qoriye qaatay isla xaafadii kale isla markii goobay dilay wuu ku fulna way dhaawaceen dadkii magaaladii markay maqleen dadka baa nin dilay wal xaafadiiba weerareen أنا الحاسوس صار وصلنا بقى وحن دقنا حلاني وحنا نوين وحياة كذا يا واحد كم ذا ضدكي الأجار كنا قد دقنا يودن أيام هو وركي مقلين بيش أنا قاعد أدقن هذا بيراه هذا أنا يقول يحافظ أنا قاعد أدقن إلا هذا نوين دقنا ضدكي عروتي يدو مرقال لك حسوقات كان بدو سوقات لا أيه قولي صوير هذا عبد الجيسو واي صورين قولي مثلا قصة إحنا ولا شيء ده هو دول سكاشناتك الله هو نحارستين نقول نتولي يقولي شاركين يقول له صباح قولي له صباح وحيري والله هنا نحفتك لي ندح تقول أنا مثلا كلا لا هدلي هذا نيك واحد لي ما هبي له قوي نين مكادين عتشوي أو هذا أفضل ayaa wuxuu dhacay sidii wuxuu yiri waa la dambaabaya ninka dilay waa nin hebel la yiraahdo oo gada bursiya kadib askadi baa yaacday waa kuwa in qof la dilay dadkii uu soo yaacay anaga waxa noo yimid guriga aan ku noolaa waxa noo yimid ciidan baa noo yimid ciidankii baa qaaday markay qaaday saldhiga markay geeyeen saldhiga aan geeyeen ayaa mas'uul kale odayaashu waxay yiraahdeen maxaa lagu dilay ninka wax dilay annaga ma ninka dhintayna annaga ma war maxaad ugu leeysantay marka waxaan xasuustaayo odayaal waaweyn oo Allah naxariistay dhintay musi jaamac gudaad kamid ahaa gureen nuur kamid ahaa ayaa arinta soo galay waxaan xasuustaa marka odayaasha inay yiraahdeen waa annaga meel buur ma ku guureynaa magaalada waan ku guureynaa kadib odayaashu waxay yiraahdeen khalad baa dhacay dibsaas baa dhacay hanaga tagin aftama marka maxay ugu dhaceen gaf inuu sameeyeen weerar inuu qadin dagarna way naga geysteen Soma buur iyo inta soo dhan naga sameeyay maalin kama nacalin saay tahayna gobolada kale Soomaaliland Soomaaliland gabooyaha jooga xaqoogu way ka helaan annaga maxaa loo diidaa qayb maxay ku hayaan gobolada kale weydin dheer way jiraan aan maray anaga kula hadlay hargeysa wada tagtay xilli baan ku leenahay agaasimayaal bilii wasiir ku xigeen bilii gibilii ku hayaan waxaan jeedaa saaxiib ku hayaan tugdheer ku hayaan kulkooda maxaa loo diiday jeltare waxa gobolka awdal ku noolahay waa lagu fadhiyo ka sugnaayaa waan gartay gobolka idinku imika maxaad ballan aad heshiisiye aad la gasheen in xisbigaasi ballantiinii idin ballan qaado haddii uu fulin way ka war wada khayr Allah siiye madaxweyne waxba kama sheegi karno wali madaxweyne ku xigeenku waan la kulanay si qurux badan oo dadnimo leh oo wali soo dhaweyn loo soo dhaweeyay ballan qaadna wuu siiyay ballan qaadka insha Allah waxa ka rajeenaa inay fuliyaan hay abi bulsho badan baa tihiin oo magaalada Boorama darcal walba ka degan aqoon adaa kamid ah shakhsiyaadka maanta tusaalaha u ah ay reer Boorama ay arkayaan muddo badan bad macallin aad ahayd muddada macallinimada aad ku jirtay maxaa adiga aad isleedahay waaya aragnimo ka soo maray ama dhibaatooyin ka soo gaaray waxa way jiraan dhibaatooyin baan soo dhaagay martay laakiin waxyaabaha sani gaariyeen hay may faantay hadu cusooyin kaliya la wax kamid ah ku yar isku isinu caadi ku yar ardayga laakiin hadda waxaan ka cadeeyay in ardaygaas saamaxay ardaygaasi galaaskii baan ka saaray markaas uu yiri midgaana galaaskii ka saaray qofta waanu yeeray maxaa tiri baan ka yiri waa midgaan qoladii aan ka yiraahday imaad caayid wax badan tartay
waxaan xasuustaa ninkii misalno kale uu xishoodiga tagay aan waxaan ku qoliis ku faana weligii mihin qoliis qay waan gartay qafatma wiskiya waa simple wiska iman karaan laakiin wax kasta maxaa ka wanaagsan heede qanaacadaada self stream ka haysaa adiga abiibahan maxaa ku qorshaysan waxa ay qorshaysan on doonayaa in misalno kale inuu dadkayga soo kiciyo anigu shakhsiyan xitaa misalno kale dadkii aad baan u dhiirigeliyaan xitaa waxyaabaha anaga xasuusta ka mid ah marka qaar mushaharkayga ayaan marka qaar ku bixiyaa on ilaa dadka wax barta nuudin yar baan mahniyo waayo ma haysan waxyaabo badan dadkii shaqooyinka shaqooyinka doctor iltrow ya xaafadaha marka qaar tagaa waxaan yiraahdaa war xaafadda dadka iskuulka iyaan yiraahdaa waxaan sameeyaa inuu isbedel dalkan dadka ay sameeyaan oo ismuujiyaan sax qorshaha ugu weyn waxa weeyaan motivation dadkayga inay kalsoonidooda soo celiyaan gobolka marka shirarka jireed la qabanayo danaha gobolka laga hadlayo ama madax dhaqameedku ay shir jireed qabanayaan waxa idinkaga jiray Suldaan Ibraahim Dacri Yuusuf oo kamid ah dadka deegaanka aad ka soo jeedo oo kaliya odayadii kale iyo dadkii kale maxaa iyaga u diiday inay salaadiinta iyo bulshooyinka ay soo dhex karaan oo ay wax la qaybsadaan wadada dirsaabad tahay anagu mid baan nahay halgeysida dadku arkaysa intaas Suldaan iska biyaacaya inuu Suldaan baan leenahay Suldaan keenina waa Suldaan Ibraahim Dacri hadduu Ibraahim Dacri hadlo cid ka dambaysa daba hadlaysaa ma jiro kun jeer buu hadlay haddii dawladda Soomaaliland nagalaadahay oo indhaha qarsanayso waxaan sameynaa walaalo laakiin waxaan isweynadaa Soomaaliland haddii iyadu xuquuqdeena dhageysan weydo xuquuqdeena ka heli weydo inaanan adduunyada dhan u sheegin waa gartay arrintii isku duwaha markaad doonatay ee aad weyday maxaad choice kale ama albaab kale ama meel kale ma samays waxa kaloo isku dayniyo inaan aan doonto agaasimaha xogayaha guud ee gobolka xogayaha guud ee gobolkan bari warqadii qaadada saada buu qaado wadiyo doorshada u gaarayda waan gartay xogayaha fulinta gobolka haye dad kale oo xilal way jiraan daliil badan way jiraan walaal haye oo waxaan doontay anigu waxay eegin daliil badan wax doonatay ya oo sidaas maxay dhalinyarta ku dhex muuqan lahayn bulshada ku dhex soo dhex gali lahayn abi waxa jira cil tireen khudaniyan waan ku waramay aan weligii bulshada lama noolaanto nabiilada ka soo jeedo lama saaxiibin kuma dhex nooli waa fatma anigu bulshada kale ku noolahay waa gartay inta badan waxaan ku dhiirigeliyaa in dadka soo dhex qaadaan in dadka la jaan qaadaan in dadka xaq ka doontaan ya hadda halkan joogno waxaan ugu leeyahay waniyo heede soo faa'iido male ya waa in xafiiska qaraacna oo xaqin raadsanaa waa gartay kolka ugu dambeyn fariinta aad diraysaa ee guud maxay tahay هذا فرينت جود أنتري واحد ويان نبركود واحد وهم بلينا مدحوينها عصوب دلك الله دورتي وندعيني وإحنا ندعيني إلى هاي نحلكوها كواس ترى كنا ديجو كوا لقوا مستنيين يا وكوا أنت بندت كمية ضدك دقالوه ينوشوا ذكرية صح أو سمية سناني عدالة واقف تام بيش يوسف جينا واحد كم ذا هذا واحد الصادق جود بينا هيش دي بينا واقف أدوك شخصيا من رجال سين حكومة عصب aad qayb ka noqoto haday heer gobol iyo heer qaran tahay isku dayga wada alf wax jira sumo mataagiya qorisal saaba tayo alf wax jira haye hadan alf kuleeyahay haye waa keenaya waana isku dayay wax badan inaan ka helo waana kala jinay insha Allah haye adiga iyo siyaasiyiinta gobolka xiriirka ka dhaxeeya waa strong very strong nidaamka wadani ku cusub muxuu ku yahay waxaan aaminsanay isku xidhnaanta anaga dhexdayeen awal masaymeek imkaad buu quud bidiyay anagoo mida ayaan dhinac wada jirnaa sax waa gartay wad maasan tahay daawadayaalkaas wuxuu ahaa aqoonyahan Abiib Axmed Xasan oo kamid ah barayaasha magaalada Boorama muddo dheer na ku noolaa magaalada Boorama ayaa maanta waraysiga toddobaadka Awdal Media marti noogu ahaa Abiib aad iyo aad baad u mahadsantahay